Assalaamu calaykum. Maxaad ka og tahay dhulka? Imise ayuu u jiraa qorraxda? Dhulkaan ku dhalannay, nalagu aasi doono, nalaga soo bixin doono, haddana aan ku noolnahay. Waxaan halkan kuugu soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan dhulka. Fadlan subscribe saar channelkan, laagtana taabo, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid. Dhulka waa meesha saddexaad ee ugu dhow marka laga hadlayo meerayaasha ku hareeraysan qorraxda. Cilmi ahaan waxaa la ogaaday haddii dhulka uu wax yar ka fogaan lahaa qorraxda, qabow daran oo aan lagu noolaan karin ayuu noqon lahaa dhulka. Dhinaca kalena, haddii dhulka uu wax yar u dhowaan lahaa qorraxda, wuxuu noqon lahaa kuleyl aad u daran oo aan nolol ka jiri lahayn. Waa sida ka jirta labada meere ee u dhow qorraxda, oo kuleylka halkaa ka jiro lagu sheegay wax ka badan 500 oo digrii. Waqti hore ayaa Ruushku ku tegay dayax-gacmeed mid ka mid ah labada meere ee u dhow qorraxda. Daqiiqado yar gudahood ayuu u dhalaalay sidii baraf qorrax la dhigay kuleylka ka jira darteed. Ilaa hadda cilmiga bini'aadamku gaaray, dhulka waa meesha keliya ee lagu noolaan karo. Waxaa u baahan tahay inaad hesho hawo aad neefsato, kuleyl iyo qabow leh, meel dhexdhexaad ah, biyo, dhul aad beeran karto. Intaasna dhulkan aan ku noolnahay keliya ayaa laga helaa. Dhulka waxaa ku nool nafley badan oo bini'aadamka ka mid yahay, waana mustaxiil in ay ku noolaadaan labadaas meere ee aan soo sheegnay. Dhulka waxaa ku gadaaman xayndaab ilaalin ah oo uu Alle u sameeyey, kana ilaaliya waxa hawada sare ka soo duula, sida shucaaca sunta ah ee iftiinka xooggan wata ee qorraxda hawada ku sii dayso. Dhulka waxa uu leeyahay magnad ka ilaaliya shucaaca dilaaga ah ee qorraxda iftiinka ku sii dayso. Badka guud ee dhulka, bad iyo berri, waa nus bilyan kiiloomitir ama 500 oo milyan oo iskuweer ah. Kaliya 29.8% ayaa ah dhul qalalan ama engegan, inta kale waa biyo, bad iyo webiyo ah. Wadamada caalamka ee ku yaal dhulka inta qaleelka ah waxay gaarayaan 200 oo wadan ama dal. Waxaa ugu weyn Ruushka. Qorraxda aad arkayso aad iyo aad ayay uga weyn tahay dhulka. Qorraxda waxay qaadaa 1 milyan oo dhulka aan ku noolnahay ah. Waxyaabaha dhulka uu ka samaysan yahay: 32% waa bir, 30% oksijiin, inta soo hartay waa aluminium, silicon, magnesium iyo calcium. Dhulka sanadkiiba waxaa soo mara 4 xilli oo cimilo kala duwan ah, sida guga oo ah xilli roobaad, xilliga xagaaga, xilliga dayrta iyo xilli qorraxeed. Dhulka wuxuu leeyahay dayax raacsan, sidaasna uga fogeyn. Qiyaas ahaan 350 kiiloomitir ayuu u jiraa dayaxa dhulka. Dhulka faa'iidooyin badan ayuu ka helaa dayaxa. Midowgii Suufiyeed ayaa isku dayay inuu dhulka qodo. Ujeedka wuxuu ahaa inuu qodo dhulka 15,000 oo kiiloomitir. Mashruucaas wuxuu qaatay waqti aad u dheer, laakiin wuu istaagay kadib markii ay kala kulmeen dhulka hoostiisa kuleyl aad u daran oo gaaray 180 digrii. Qalabkii iyo dadkiiba ayaa u adkaysan waayay kuleylka ka jira dhulka hoostiisa.
sidaas ayuuna ku istaagay mashruucii Ruushka ee ahaa in ay soo ogaadaan waxa dhulka hoostiisa ku jira. Dhulka meesha ugu kulul waa saxaraha ku yaal waddanka Iiraan. 71 digrii ayuu gaaraa, waana meesha ugu kulul dhulka aan ku noolnahay. Dhulka wuxuu u qaybsan yahay 7 qaaradood, waxa ayna kala yihiin Aasiya, Afrika, Oroba, Koonfur Ameerika, Waqooyiga Ameerika, Australia iyo qaaradda barafka fadhiyo. Waxaana ugu weyn qaarad ahaan qaaradda Asia, waxaana ku soo xiga qaaradda Afrika.